بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مرحوم walaal xildhibaan khaliif muumin jannadiisi eebaha ka waraabiyo. runtii maanta ayuu ku geeriyooday magaalada Muqdisho. waa geeri naxdin leh. waxaan halkan marka hore taxsiiraan ugu diraynaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Hirshabeelle si gaar ah waxaan ugu taxsiinaynaa dhammaan asxaabtii qaraabadii iyo ciyaalkii uu ka tagaybo. eebana waxa ugu baryaynaa in jannadiisii uu geeyo. intaas kadib marxuumka geeridiisa waa sax. maanta ayuu ku geeriyooday magaalada Muqdisho. marxuumka ayaa 7 bishan waxaa laga qaaday magaalada Jowhar asagoo markaas lahaa calaamadihii lagu garan ogaa cudurka COVID-19. runtii isla jimcihii maalintii aheeday ayaa noola soo xaqiijiyay in uu qabo cudurka COVID-19. runtii maantana geeridiisa noola soo sheegay. runtii waxaan dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed oo cadeynaynaa in uu xildhibaanka uu geeriyooday. dhammaan waxaan halkan taxsi ugu diraynaa qoysaskii iyo ciyaalkii iyo dhammaan dadkii oo asxaabta ahaa inay isla shaqeynayeen. waxaan mar kale rabnaa halkan in aan ummadda reer Hirshabeelle qaasatan dadka ku nool magaalada Jowhar aan fariin baraarujin u dirno. walaalayaal cudurka yaanan dhayalsanin. cudurkan waa mid magaalada ku faafayo hadda. sidaan hore u sheegnayna cudurka runtii waxaan uga baqaynaa dadkii markaas la tacaamulay xildhibaanka in iyagana ay cudurkan ilaa qadar Allah ay markaas la nool yihiin. ha yeeshee waxaan baraarujinaynaa dhammaan dadkii la macaamilay mar kale in ay ku jiraan guryahooda aysan bulshada soo dhexgelin. waxaan kaloo rabnaa in qof walbo oo iska arko calaamadihii cudurkan lagu garan ogaa in uu la soo xiriiro wasaaradda. runtii wasaaraddu waxay u diyaarisay testiyadii lagu qaaday ama lagu baaray cudurkan iyadoo markaas loo sii gudbin doono wasaaradda caafimaadka oo federaalka si loo soo baaro. marka walaal haddaad isku aragtid calaamadihii lagu garan ogaa wasaaradda la soo xiriir si lagu caawiyo cudurkaane. mar kale waxaan leenahay dadka miisan dhayalsanin. waa cudur faafay ummadina maxaa la yiraahdaa marba haddii iskuuladii jaamacadihii iyo goobiyada waxbarashada ay ugu dambeeyeen dugsiyada quraanka la fasaxay. waa dareemi kartaa heerka uu gaarsiisan yahay. yaan la dhayalsanin wacyigelinta wasaaradda ay wado. waxaan ugu baaqaynaa dadka ku nool magaalooyinka ay ka kooban tahay dowlad goboleedka Hirshabeelle in ay u dhiganuglaadaan baraarujinta wacyigelinta iyo shaqada ay hayaan wasaaradda maxaa la yiraahdaa tiimamka ay u tababartay iyo dhammaan dhaqaatiirta ama ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo dadka kala shaqeeyo xaaladahan. waa mahadsantiin.